ardayda Soomaalida ay wax ka barta jaamacadaha ku yaala dalka Koonfur Afrika ayaa maalmo ka mid ah toddobaadkan waxaa xaafadda Soomaalidu ku badan tahay Belfil ka sameeyeen barnaamij wacyigelin ah oo loogu talagalay in lagu baraarujiyo bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. barnaamijkan oo la kala qabtay 2 maalin ayaa inta uu socday waxaa goobaha lagu qabanayay aad u buuxdhaafiyay dhalinyarada Soomaalida ay ka kala yimaadeen deegaanada tuulooyinka iyo kuwa ku nool gudaha magaalada Cape Town waxaana halkaas lagu siiyay macluumaad la xiriira goobaha waxbarashada iyo heerarka kala duwan ee qofka u baahan yahay in waxbarashada uu ka bilaabo. xubno ka mid ah ururka ardada ayaa dhalinyarada baahida u qaba in ay helaan waxbarasho ayagoo ka faa'iideysanaya fursadaha yaala dalka Koonfur Afrika. waxay diiwaan geliyeen in ka badan 100 arday oo u baahan waxbarashada noocyadeeda kala duwan sida uu warbaahinta qaranka u sheegay Cabdiwahaab Xaaji Faarax oo ka mid ah ururka ardada Soomaalida ee barnaamijkan wacyigelinta qabtay. barnaamijka maalintii ugu horeysay aan bilaabno waxay ahayd maalinta Jimcaha aan bilaabnay waxaan diiwaan gelinay ku dhawaad arday 70 ah. dadka aan diiwaan gelinay waxay isugu jiraan dhowr qaybood. waxaa jira dad hore wax u soo bartay oo ilaa ay dugsiga sare soo dhameeyay Soomaali ku soo dhameeyay. sidoo kale waxaa jira dad macnaha dugsiga dhexe kaga istaagtay iyo sidoo kale dad macnaha aanba weligood wax soo baran oo kale. waxyaabaha marka aan sameynayna waxay ahayd waxaan u kala qaybinay dhowr departments oo loogu talagalay in qayb walba macnaha qaybta qosayso aan aadino. sidoo kale barnaamijka waxaa daba socday sidoo kale barnaamijyo ama dhiirigelin oo aan meelaha Soomaalida isugu timaado sida maqaayadaha meelaha isugu imaadaan oo ku shaahiyeen oo kale aan ku qabanaynay. Cabdinaasir Cali Caraali gudoomiyaha ururka ardada Soomaalida ee gobolka Western Cape ayaa sheegay in muhiimadda barnaamijkan uu yahay in bulshada ay uga faa'iideeyaan xogta ay ka hayaan waxbarashada iyagoo ka faa'iideysanaya xilli fasaxeedka lagu jiro isla markaana ay qaban doonaan barnaamijyo kale oo wacyigelin ah oo ay uga faa'iideynayaan bulshadooda Soomaaliyeed. programkan waxaa la yiraahdaa magaciisa educational awareness amba wacyigelinta waxbarashada. programkan waxaa nagu qasbay inaan sameeyno markii aan ogaanay ardayda wadankan wax ka barata tiradooda aad u yar. waxaan kaloo istusinay in ay u baahan yihiin information dadka si ay waxbarashada u bilaabaan maxaa yeelay wadankan environment ahaan kama warqabaan waxbarashada iyo heerka uu yahay wadankan. markii ardayda tashatay waxaan go'aan ku qaadanay inaan wadankii oo dhan aan ka hirgelino barnaamijkan waxaan ka bilaabnay qaybtan aan madaxda ka ahay ee gobolka Western Cape waxaana lagu qaban doonaa wadankan dhamaantiis. waa markii uu horeysay oo barnaamij noocan loo qabto dhalinyarada Soomaalida ay aan helin fursadaha waxbarasho ee dalka Koonfur Afrika waxaana ka faa'iideysan doona bulsho aad u fara badan oo Soomaaliyeed. Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town South Africa.